السلام عليكم haddaad ku cusub tahay isticmaalka kombiyuutarka waxyaabaha ugu horeeyo ee dhagahaaga soo gaaraya ayaa ah kelmadahan Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 marka ma taqaanaa waxa laga wado marka hore intaan ku sharaxin Windows-yadaas waxa laga wado waxa muhiim ah inaan ku sharaxo kalimadan operating system kalimadan haddaan af Soomaali ka dhigo waxay noqonee dhaqaajiyaha nidaamka wali saan filayo waxa isweydiinaa su'aal oo ah maxaa la dhaqaajinaa maxaana nidaam ah haddaan ku sharaxa ila soo operating system waxa laga soo gaabiyay OS waa dhowr barnaamijyo oo software ah oo noqonaya midka u dhaxeeya ama u kala tarjumaya ama kala dhaqaajinaya hawsha u dhaxaysa qofka kombiyuutarka isticmaalayo iyo kombiyuutarka naftirkiisa sidoo kale wuxuu tarjumaan u noqonaa qalabyada hardware-ka uu kombiyuutarka ka kooban yahay iyo barnaamijyadiisa oo software-ka ah macnaha kombiyuutarka iyo qofka isticmaalayo haddii tarjumaankan OS la dhaho haddii waayaan ma isfahmayaan isfahan meesha kama dhici karo saan filayo hadalkayga weli waadax maaha isug marka haddan ku sii waadaxina macnaha ka soo qaad maalinta koowaad ee bisha Ramadaan oo soonka nagu cusub yahay badanaa dadku waa tacbaan haddaa qofka fiirisid tacbaan zaa'id waay sax marka dadkaas maxaa ka maqan oo saas ay tacbaan u yihiin okay waxaa ka maqan sax cunto iyo biyo marka cuntadaas iyo biyahaas haddaan magac kale u bixiyo sharaxidda maanta magacaasi waxaan ka dhigi karnaa tarjumaanka bani aadamka dhaqaajinaya waa cuntadaas iyo biyahaas macnaha cuntadaas iyo biyahaas hadduu waayo bini aadamka way cuslaanaya marka si uu u dhaqaaqo ama hawlo badan uu u qabsado marka sidaas oo kale kombiyuutarku wuxuu leeyahay barnaamijyo dhaqaajinaya haddii barnaamijkaas la waayo kombiyuutarku wuxuu noqonaa qolof guriga ku yaalo camal waxba kuma taraayo marka su'aasha taala ayaa ah Windows iyo operating system intee ay isku soo galayaan sidaan hore kuugu sheegay Windows ma fahmi kartid adoon OS fahansaneen marka hadalka haddaan kuu soo koobo Windows wuxuu ka mid yahay barnaamijyada dhaqaajiyaasha ee operating system iyadoo ay jiraan operating systemyada kale sida Android oo ah midka dhaqaajiyo taleefanada haddii taleefankaaga uu waayo Android ma dhaqaaqi karo waxaana iska leh shirkadda Google sidoo kale Mac ay leedahay shirkadda Apple marka qaybahaas insha Allah mar kale ayaan sharxi doonaa marka su'aasha muuqaalkan aan ku soo bilownay ayaa ah maxay kala yihiin Windows XP muxuu yahay Windows 7 muxuu yahay Windows 8 iyo 10 marka ugu horeyso uu Windows uu ka mid noqdo operating systemyada jira waxay ahayd September 1981 laakiin marka ugu horeyso oo Windows uu shaqeeyo ama la soo saaray waxay ahayd November 1985 waxaana loo yaqaanay waqtigaasi Windows 1.0 sidoo kalena waxaa loo yaqaanay MS-DOS laga soo bilaabo waqtigaas ilaa 2000 fiirsano badan oo Windows ah ayaa soo baxay ilaa ugu dambeyn 25 October 2001 waxaa soo baxay Windows badankiina taqaaniin oo ah Windows XP sidoo kale 3 November 2006 waxaa soo baxay mid kale oo la magac baxay Windows Vista iyo doona 22 July 2009 oo soo baxay Windows 7 sidoo kale 26 October 2012 waxaa soo baxay Windows 8 sidoo kale 17 October 2013 waxaa soo baxay Windows 8.1 ugu dambeyn 29 July 2015 waxaa soo baxay Windows 10 oo ah nuskhada ama version ugu dambeeyo ee hadda la isticmaalo hadda saan filayo waa isla fahanay ayaan u maleynaa waxa laga wado Windows XP iyo Vista iyo 8 iyo 10 muuqaalkeena maanta intaan ayuu ku eg yahay balanteena insha Allah waa qayb dambe waa walaalkiin Yacquub Abikar Cabdi Samad wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh